السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastaad joogtiin iyo si kasta idin tahayba waa salaamantihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii Danger Show wax la hadal hayaba doorashadii la sugayay inay dhacdo ee xisbiyada dalka Canada way soo afjarmeen guushana waxay raacday xisbiga liberalka oo awalba xukunka hore u hayay muddooyinka dambe inkastoo lala yaabay doorashada natiijada ka soo baxday sababtoo ah codka ay haysteen xisbiga liberalka aad uu u yaraa tartanka bilowgiisa weliba dad badan waxay saadaalinayeen markan in laga qaadi doono oo xisbiga conservative-ka uu ka rayn doono laakiin si lama filaan ah wax yar ka hor doorashadii aan nambarkoodii kor u soo kacay oo ay heleen codad badan waxayna xisbiga liberaalka markaan u noqonaysaa doorashadii afraad oo ay ku guulaystaan xukunka dalka haddaba waxaa dad badan isweydiinayaan maxaa keenay xisbiga liberaalka ah oo cod ahaan laga horreeyey oo weliba dad badan saadaalinayeen in markaan la reebi doono maxaa keenay in xisbiga liberaalka haddana dib loo doorto Mark Carneyna in loo doorto ra-iisul wasaare sababta keentay in xisbiga liberaalka dib loo doorto Mark Carneyna mar kale loo doorto ra-iisul wasaare waxaa loo badinayaa ama dadkoo dhan isku raaceen inay tahay dhowr arrimood waa mideeda koowaade inay tahay arrintan buuqeeda weli taagan yahay oo ah canshuurta Maraykanka ku soo rogay dalka Canada midda labaad iyadana inay tahay dhaqaalaha dalka oo hoos u dhacay lagana cabsi qabo weliba inuu intaan ka sii daro midda saddexaad oo iyadana ah dalka Maraykanka madaxweynaha dalka Maraykanka Trump oo dhowr jeer meelo badan ka yiri Canada waa inay ahaataa ama waa inay noqotaa gobolka konton koowaad ee Maraykanka taasoo ee dadka Canadianka ah iyo madaxdoodaba aad uga xanaaqeen si kululna uga falceliyeen midda kalena ra-iisul wasaaraha la doortay Mark Carney oo ah nin dhaqaaliyahana oo khibrad dheer u leh arrimaha dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha oo ay dad badan u arkeen runtii in uu yahay nin ka saari kara marxaladda maanta dalka marayo ee dhaqaale xumada hadda jirta inuu ka saari karo teeda kalena inuu yahay nin madaxweynaha dalka Maraykanka Trump la xisaabtami kara oo miis kula soo fadhiisan kara oo la gorgortami kara sidaa darteeda keentay dad badan oo ugu shubi jiray awalka hore xisbiyada kala duwan sida xisbiga NDP-ga ee xisbiyada kale iyo weliba xataa midka conservative-ka dadkii awal codkooda siin jiray dhinacaas inay sanadkan ama doorashadii hadda dhacday inay ugu shubaan liberalka sida la ogsoon yahay in isbeddelkan dhacay iyo canshuurta dalka Maraykanka soo rogay ee culays badan ku keentay dhaqaalaha dalka Canada kaasoo abuuray walwal weyn oo ay hadda dadkii ka qabaan arrinta inay intaan kasii ballaarato dhaqaalahana inuu intaas kasii xumaado haddaba dadka immigrantga ah ee dalkan ku nool ee Soomaalidana ka mid tahay ayaa tiradooda maalinta kasii dambaysa soo kordhaysa ahna dad codkooda lagu xisaabtamo markastay doorasho jirto sidoo kale waa dadka ugu horeeya oo dhaqaale xumadan iyo dhibaatadan dhacday sida weyn ee u saameynayso sidaas daraaddeed ajaaliyadaha kala duwan ee degan gobolka Ontario qabsadeen kulanno doorashada ka hor si ay xisbiyada tartamaya midka iyaga dan u ah oo xuquuqdooda tixgelinaya ula fadhiistaan ururka Ontario Somali Canadian Council oo ah urur ee jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Ontario ku midaysan yihiin ayaa kulan qabsaday waxayna uga hadlayeen arrimaha muhiimka u ah jaaliyada waxyaabaha ugu horeeya oo muhiimka u ah iyo sida ay ugu gudbisan lahaayeen baahidooda mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa federaalka intaba kulankaas oo lagu qabtay Zoom oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah ururka iyo gudoomiyaha ururka Avocate Cabdullaahi Barre oo ku magac dheer Cabdullaahi Wall ay soo rooday inaan kala qayb galo sidaan u dhacay intii waa samaysay aniga haddaan ka hadlo Workers Action Center haddaan ka hadlo waxa waaye inta aad sheegtay waa campaign-keenay ka mid tahay waxa waaye waxa ugu horeeya qofka unemployment insurance 55% waaye qofka markii lacagta uu qaadan jiray 50 in la siiyo hadda sida laga dhigayo oo aan doonayno campaign-ka u galeyno 600 in la siiyo qofkii oo aan lagu xirin qofka markii shaqada laga saaro uusan sugin horey uu ka apply gareeyay hore lacagta laga soo diro taas waa midda koowaad waaye waa campaign-keena waaye waxaan ku jirnaa mataqaana campaign-ka labaad waxa waaye ugu weyn
groceryga waxaa ka daran evictionka ka daran evictionka ijaarkii aad kor u kacay qaali waaye soomaalidii laba shaqo saddex shaqaa laga shaqeeyaa kuwa uberka wada kuwa waxaan aqaanaa 18 saac shaqeeya 6 saac ay shaqeeyaan keliya fabilkooda ayagoo daalila yimaadaan waa seexana xataa carruurtooda lama kulmi karaan marka dhibaatooyinkaas badanaan nahaya kambeynkaas waa ku jirnaa laakiin waxaa muhiim ah oo aan idinku waxaynayaa in hadda doorashadii sabsniintay noqonaysaa xisbiga soo baxaya liberaalka ayuu u badan yahay liberaalka marka inaan la diilgarayno markii la doorto nin kasta meesha uu joogo in yacni minimum wageka laguma noolaan karo oo hadda la qaato magaranaysaa marka inaan bushkarayno xisbiga oo noqonaya majority waxaa lagu qiyaasayaa liberaalka inuu noqonayo laakiin annaga waxaa dan noo ah liberaalka inuu minority noqdo oo NDP-da alliance uu la sameeyo markaas waxaan helaynaa janis aad u fiican ayaan helaynaa laakiin liberaalka hadduu majority uu noqdo oo 172 ama ka badan kuraas uu helo wuxuu rabo uu samaynayaa magaranaysaa dadkana waxay ku dooranayaan ninkan nin Trump naga dhici kara inuu yahay marka aniga talada aan soo jeedinaya waxa waa campaignkeena waa idiin soo gudbinayaa email aan isku soo gudbinayaa inta pointi oo aan campaignka ka gelayno waxaan marka aan soo jeedinayaa dadkeenna inaan ku boorino nin kastaba MB-ga oo ka soo gala meesha oo liberaal ah oo ka soo gala in email telefon ama loo tago live loogu tago oo ballan laga dhigto oo arrintaas campaignkaas mataqaana 4taas qodobo hadda ka hadashay laga wada hadlo السلام عليكم أنيقو هل بوينت أنكو درسانيا برادر عبد الله waxaa ka tagteen arrin aad u advocate garayn jirtay deportationka dadkeena Soomaalida la celinayo iyo waxaan kaloo rabaa in aan ku tashano qoladan in lala hadlo waxaa ka horeysa kuwa anagana masala inaan la hadalno ay sidee noogu dhegan ugu yihiin mana masalaan xiriir ma naga dhexeeya ma yihiin kuwa noo doodi kara waa ka baxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تصنت باي بصرة كل أنا هرت وحن ربا إن أن highlight جري couple points أو آد مهم نوعه community جينا لو الله بقيب مدنا وقيب تدت كينا community جينا الصومالي ذا محدن إنه مدنا ومد general كأهون لقيب سنة إنه أمدان مسلم كأن مقالة ذا وذا دقنا so أنا we had a meeting في عنان لسمينا MBB ذا نودن مساجد كالو كل مية I think Wednesday night أو لصوت دافي nin walba iyo waxyaalaha damaanka ee wataan muslimiinta iyo kulli aan meesha kala hadalnay iyo annaga danno ah waxa ugu muhiimsan horta annaga dadkeenan border Syria degan oo meeshan annaga 5 minutes cross the border meel ahaan joognaa magaaladeena Windsor waxa ugu muhiimsan oo aan ka dhawaajinay waxa waaye Canadian Muslimka oo borderkaas gudbaayo iyo arrimaha uu Trump uu soo saaray iyo Muslim ban kaas uu ku soo qaaday iyo waxyaalahan regulation badan oo dad badan oo Canadian ah oo la detain lagu sameeyay borderadaas gudbaay maxay ka qaban karaan arrimahaas midda kale ton ka dhawaajinay waxay ahayd bill 21 oo iyadana ah mid aad looga hadlay oo ah xijaabka la baangareynayo oo Quebec ay ka dhaqaajiyeen iyagana ay rabaan inay bill 21 ay hergeliyaan marka waxaan kaloo annaga as a community-geena maanta Soomaali ahaan aan ugu wada hadalnay meeting-kii aan lahayn wuxuu ahaa guri la'aanta waxa dadkeena aad ugu dhawaajiyeen waa guri la'aanta iyo maxay ahayto access oo legal aid ka sidoo dadku u caawin jiro uma caawiyaan waxay iyaga bilaabeen naftigood little bit of screening inay dadka ku sameeyaan marka waxyaalo badan aan ka dhawaajinay oo arrimaha dadkeenana guud noo ah dadkan muslimiinta aan la qaybsanayno sida oo islamophobia waxyaalo badan aan u baahannahay in ay dadkaas soo sharaxaaya ee annaga garab noo noqon karaan marka alxamdulillah maanta 6 o'clock-na waxaan la kulmaynaa prime ministerka oo hadda asigana sharaxan oo aan demand badan aan wadano aan asigana aan rabno inaan meesha aan ugu sheegno marka alxamdulillah intaasaan aniga idinku darsanaya asra ma santahay waxyaabo badan noo muhiimsan sidaad sheegtay horta waxaa jiro dhibaatooyin badan oo guud ahaan dalka iyo gobolka iyo magaaladaba ka jira oo annagana aan la qabno taas sidaad sheegteenba dadkaana kala simannahay dadaalada iyo ololaha iyo wacyigelinta ay wadaan inaan qayb ka noqono annagoo markaas hadda haysana
through a Workers Action Center inaan u marno because Workers Action Center Soomaali bisa uma shaqaysay dadyo kala duwan oo xuquuqda shaqaalaha dhan ay markaas u shaqaysaa. Sidaan ognahayna Workers Action Center waxaa hoosta dad aad u badan oo maaragtay in ka badan 2 milyan oo shaqaale oo markaas la sheego inay kasii badan yihiin almost 2 milyan ay gaarayaan. Marka taas anaga Workers Action Centerna u marayno la kaashanayno haddii noqon lahayd in xildhibaanada cadaadis la saaro in kulamo la yeesho in maaragtay sidii toddobaadkii hore camal kulamada sameeyeen oo kale taas qaabkaas bal inaan u wajahno laakiin tan anaga si goonin oo taabanaysa markii Soomaali laga hadlayo waxaa kamid ah horta wacyigelin badan dhexdeen inaan sameyno u baahan saddex arrin aan hadda ka dhawaajin lahaa inay ka badiyina laga yaabaa idinka ku dari doono waxaan ka tago kowtan immigrationka oo dadkii hadda Workers Action Center iyo Soomaalidaba Cabdullahi Ward Soomaaliya Interior Council iyo Workers bay u dadaalayeen oo ah muddana awokaataha Cabdullahi Ward uu ku jira arrinkan dhalinyarada la tarxiilayo iyo sharci la'aanta iyo qaarkood ayagoo sharci haystay xitaa oo citizenshipka xareynaya la leeyahay markaagii hore si qalad kusoo gashay oo cidda hadda qabsanaysa ay ahayd in markii koowaad oo si qalad qofka kusoo galaya inay shaqadooda qabsadaan ahayd oo ay baaraan oo ogaadaan qofkan si saxan uu kusoo galay laakiin qof 3 sano jooga 4 sano jooga jaamacadda may cashuur diiba ay sanad walba $11,000 $13,000 inaad markuu citizen xariistaa dhahdo waddankan maba qaladaaba kusoo gashay markaagii hore soo marka hore soo galaya in wax laga qabto taasoo kale waa mid Workers Action Center la kaashan karo annagana si gooni xildhibaanada xaafadaheena aan warqado u qori karno oo su'aalahan oo common sense-ga aan weydiin karno oo federal level aan ka hadla dabcan taas immigration dabcan ama arrimahan tarxiilka ku saabsan kow waxaan aaminsanahay inay naqusayso oo dhalinyarada ayaga laftooda la tarxiilayo dhalinyaro oo inay hadlaan rabaan maahan cabsi badanaa loo sheegay oo haddii hadlaan banaanka iskeenaan inay dhibaatadooda sii badanayso laakiin waa fahmi karaa duruuftooda innagaa laakiin aan cabsanayn innagaa aan laga rabaa inaan taas u istaagno oo iyaga advocates aan u noqono taasoo tan tarxiilka iyo arrimahaas sharciga la xiriira tan kale loo baahan yahay oon ka hadli karno Soomaalida qusayso wacyigelin dhexdeena inaan sameyno taasoo cid kale aanan u baahnayn waxaa ka mid ah arrimaha mental illnesska ama mental issue la xiriira Soomaalida ilaa hadda wacyigelin buuxda ma ka qabaan arrinkaas Soomaali saa ogtihiin dad badan keen xilli dagaalaan soo kornay dagaalaa waddanka lagu soo noolaa dhibaatooyin badana dadka la soo kulmeen qaarkood dad la dilayay arkeen marka waxyaabahaas oo dhan si toos ama si dadbanba bani'aadamku way u saameeyaan marka in dadkii muddo lagu celceliyo in xanuunkan uu yahay xanuun jiro dadkana ay aqbalaan loo sheegana maaragtay dee iska dareemaan inay caawinaad ay weydiistaan oo maaragtay u tagaan dadka ahalku ah oo dhanka caafimaadka ee la xiriira labadaas qodob oo tan socdaalka iyo tan naqusaysa tan kale ka hadli karana waxa waaye annaga ka Soomaali ahaan sidee xiriir dhow ula yeelan karnaa cidda markaas hoggaanka haysa cidday doontaa noqoto ama xisbigu doona ha noqdo taasna waxaan isleeyahay doorashada hadda waxay dhacaysaa Isniinta sida loo badinayana McCartney iyo liberaalka lagu wadaa inay soo baxaan ninkii conservative-ka waxaa laleeyahay kursigiisaaba halis ku jira iska daa prime minister inuu noqdee marka annaga markaas maxaan samayn karnaa xaafadaha Soomaalidu u badan yihiin hadda last adiga 3 doorasho u dambeysay liberaal haysto Ethiopia hadda aragteen Ivan Becker xagga jooga inta Axmed Xuseen jooga laftooda in loo tago oo guddi la sameeyo oo Soomaali Ontario maaragtay ama dad madax bannaan ku jiraan loo tago arrimahan dhibaatadan haysta lagala hadlo dilalka ka mid ah walow hadda ay yaraadeen laakiin still way jirtaa dhalinyarada Soomaalida dilalka iyo dhibaatooyinkooda waa qodobka saddexaad oo si gooni ah oo annaga noo haysto u baahan xildhibaanana kala hadalno maxay qaban karaan iyaga waa stepka labaad aan u arkaa aniga maxay iyaga qaban doonaan laakiin annaga maxaan qaban karnaa ee hadda joogtaa annaga waxaan qaban karnaa inaan arrimaheena u gudbino la kulanno warqado u qorno la fadhiisano meel walba imaanayaan ka sheegno then ayagii markaas markii labaad maxay qaban karaan iyo intaasoo maraan wax gudbine maxay ka qabteen su'aalo kaloo dib markaas xilligeeda la iska weydiin doona noqon doontaa dhibaatada ugu weyn hadda mujtamaceena haysato waxa waaye guryaha dhibaatada ka haysta dadka markan bayjoogooda waxa waaye horta waa minimum wage la siinayo hataa cunto uma deeqaysa iska dhaaf ijaar ka bixiyaan dadaa laga bixinaa guriga lama dhiibi karaan taas waa main issue walow annaga hadda KW Katinar Waterloo
regionkeena uu dadka u ofargareeyo oo really low income ka ah 800 oo ziyaado uu siinaya si ay ugu kordhistaan ijaarka guriga walow intaasna wax tarayna wali ay yar tahay laakiin hase way dhaantaa every ka dhaantaa marka guriga maanta hadda waa samaday ku jira 200 3,000 aa ku helaysaa cidan aad arkaysaa oo ka kooban 10 laba qol ka badan ma ijaari karaan inaan horta aan dhaxdeena wada hadalno community-gan aan kalsooniye ka kasbano anagoo tusayna inaan mathalayna aan wax uga qaban karno baahidooda taas waa main thing aan raba inaan ku biiro maanta meetingkan waxyaabaha kale la sheegayna oo maaragtay inay maanta lala socdo siyaasadda maaragtay qolada maanta hadda meesha qaban doonto mathalka wuxuu leeyahay ninka hooyada aroos waa adeerkay waa sheekada saas waaye we don't care kadlak waa inaan la yeelanaa xiriir oon maaragtay arrinta uu community-geenana aad uga hadalnaa oon reel isku xilqaamna aan tusno tay waxtar inaan u qaban karno community-gaan aan hadda anaga mathalayno cabdullaahi ku wareeg cabaar afarta ku taagneeda maya waxaan ku wareegaa waxa waaye xuseena ka dhawaajiyay arrintan rabe inaan sheego annaga soomaalida wax noo gaar ah ma jiraan waxaa xogaa noo gaara keliya gun violencega noo gaar ah laakiin campaignka hadda lagu jiro annaga keliya ma aha waxa waaye xuseen wuxuu idiin sheegay communityada badan ayuuba workers action center wuxuu wakiil ka yahay shaqaalaha ontario oo aan unionada ku jirin ayaan wakiil ka nahay oo ilaa lagu qiyaasayo 1 milyan iyo 500 waa kasii badan maalinta waa kasii bataan 1 milyan 200 ay ahayd marka aniga galayay hadda 1 milyan iyo 500 kun waa dhaafeen 2 milyan ku dhawaad waaye marka shaqaalahaas waxa la qabanaya marka workers action center waxyaabaha si u priority jirta si u kala horeeyaan wax hal mar la qabanaya hadda inta aan ka dhawaajinay hal mar wax la qaban kara ma aha yaa muhiim u ah yaa priority u ah income-ka kow guriga labo magaraysaa yani immigrationka saddex yani waa kala horeeyaan marka workers action center wuxuu leeyahay communitaad fara badan waa la shirayaa waxa la qabanayo oo guud ahaan aan u qabanayno waa idiin soo gudbinayaa waxa laga rabo siyaasiyiinta waxa laga rabo sida loogu tagaayo sida loo arkaayo waxa dhan waa idiin soo gudbinaya hadduu lahdo laakiin annaga wax gaar noo ah waxa ka jira keliya gun violence ka jira waa ka baxay wallahi waxaan ku darsan lahaa cabdullaahi isla garanay barbalemkii waa shaqaalaha guryaha immigrationka habkeen u wajahnaa yaana masala aan ku daba faylnaa mb aan u tegayno aan ku wada tashanayno oo noo gudbinayo codkeena what's procedureka muxuu yahay cabdullaahi waxa waaye workers action center ayaa soo saaraya waxyaabaha si u kala muusihiin waa naloo soo gudbinayaa annagaa markaas haddana shirayna wixii aan rabno annagaa markaas weydiisanayna soomaali ahaan laakiin wax gaar noo ah soomaalida ibrahim ma jiraan workers action center ayaa ka shaqaynaya iyadoo qoraal ah ayaa idiin soo gudbinaya qoraal markii loo soo gudbiya annagaa markaas kala xulanayna iyo sidaan wax u qabsan lahayn waxaan u fahmay marka workers action center baan ka duulaynaa sooma workers action center ayaan ka duulaynaa asaga ayaa khibrad u leh waxa naloo qabanaya iyo see u kala horeeyaan maxaa ugu horeeya income-ka ugu horeeya qof aan income haysan midda kale income-ka hadduu ku yar yahay xataa crime-ka badanaya markuu income-ka loo noqdo crime-ka waa badanaya hadda annaga dhibaatada ugu weyn haysta gun violence-ka maxaa waaye guryihii dowladdan lagu wada jiraa dadkii waa low income waaye buur waaye magaraysaa maxaan marka gun violence daraag iyo balaayi iyo gun violence noo yimid ilaa iyo 180 carruur ah la dilay mataqaanaa 10 sano u dambaysay marka kaas annaga gaar noo tahay laakiin kaas dadaa ka shaqeeya waxaa ka shaqeeya mahad afweynaa ka shaqeeya communitygiisa ka shaqeysa community kala ka shaqeysa masaajidada dhanaa ka shaqeeya laakiin annaga workers action center markaan nahay waxaan soo saaraynaa waxaana khuseeya saan wax uga qaban lahayn qoraal iyadoo waxaan soo diraynaa kabacdina waa shiraynaa hadduu dhahdo sidaan meeshaan mari lahayn insha allah waa ku wada heshiinay waxaa noo dhiman keliya waa maxay noo qaban karaan workers action center we are ready to do anything it takes to help each other insha allah waxaa idiin sheegaa horta issuega oo soomaali ahaan haddii la dhaho na haysato horta aaday u badan tahay second markii topica aan ku soo noqdo aan maanta iskugu nimiday horta electionka waa kana waa yimida 28ka soomaali hadda qofka aragto wuxuu ku leeyahay waa la kala daadsan yahay oo hadda ma nihin dad codkoodii meel iskugu geysanaya ma nihin
laakiin waa dadaalo weynaa campaign adig iska sameeyo weynaa anaga ahaan waxaan dhow weynaa liberaalka wax nooga roon ma lahan liberaalka aan soo saarnay special aniga raayirkeyga aan deganahay waxaa ka cararaya wiil soomaali ah oo weligiisba noo hayn jiray aniga as a community waa isu burgariyay xafiiskiisa federaalka waxaan uga baahdana waan ka heli jiray maasha allah marka mar walbaba anaga qofka soomaalida oo intaan u tagno dhibkeena u sheegi karna ayaa danteena tahay haddana asaga waa liberaal marka xaafadeeda waa saas noocaas doorashadii waxaan u badanay hadda soomaalidana aan ku dhiirigelin inay liberaal uun siiyaan because ayaga haddii la fiiriyo noo janis ron sidaan isdhahnay oo qoladan kalea nooga daran hadday qabsadaan dadteeda kaleeto problemka kaloo soomaalidana work action center waxa waaye waxaan kusoo gaaray cabdulaahi oo dhahaayo maaragtay work action center ayaa maarkino noo soo sheegayso waa run work action center way noo soo sheegayaan waynana na kaalmaynayaan waynana nala shaqaynayaan laakiin waxay kasii jecel yihiin inaan annaga oo wadano programkeena dhehayno dhibkaan iyo dhibkaan iyo dhibkaanan haysto sideen idinku caawini karnaa dariiqaan iyo dariiqaan iyo dariiqaana nagu caawini kartiin okay maxaa u baahan tihiin dhaqaalaan u baahannahay waxaan u baahannaha dadna caawinoo na raaca u baahannahay dad khibrad waxaan u lahoo maarata albaabada nala qaraaca adiga weygii aan anaka caawinaad u weydiisano ayay horta work action center ay noo caawinayan laakiin qofka waxaa laga rabaa inaan wax abuur keensano annagaa waxaan ka rabaa maxaa ilan ayaga communitygeena ma yaqaanin maxaa idin caawini kara markii lagu dhaho waa inaa adiga keensataa oo tiraa saan iyo saan aa laygu caawini karaa okay saan iyo saanna in layla sameeyaan rabaa inaa annaga horta la nimaadnaa fiican ma insha allah anaga hadda ninkii prime ministerka magaaladeena maanta joogo 6 o'clock aan la kulmaynaa oo waxyaalihii damaanka iyo generaalka noo ahaa iyo kulli lagala wada hadlayaa oo su-aalaheeni iyo qofkii gudbinaya kulli waa gudbinay marka insha allah taasna khayraan kala kulmaynaa I will update you hadduu ilaah yiraahdo laakiin community ahaan waxaan isku raacnay nin walbo anaga markaas dan noo ah oo dadkeena caawinaya inaan cod ka siino midda kale waxaa idin sheegaya hadda anaga ururkeena waxaa kusoo biiray Somali Arab community kusoo biirtay magaraysa hadda ninka nagu jira Xuseen wuxuu wakiil ka yahay Somali Arab community marka Somali kaliya ma aha Somali Arab community hadda member ay ka tahay mataqaana maxaa workers center ka tahay magaraysa ayaga marti qaaday waxaan ka qayb galay shirkoodan ka qayb galay shirkiyaan khudbo ka akhriyay waxaan qabanoo dhan aan u sheegay hadda member waxay nagu jiraan consulkii ay ku jiraan magaraysa gudoomiyahooda Zainab oo ka mid ah Zainab labada dhinac baa ku jirtaa oo kijir ah Xuseen waa ku jira leedku ku jira Xuseen Ali magaratay marka waxa waaye wixii dhibaata oo Soomaalida ay qabto Xuseen waa yaqaanaa 10 sano la shaqeynaya Xuseen taqaana Voice of America ka shaqeynayay wixii dhibaata ah waa gudbinayna hore laga qabanaya idinka soo sheega kaliya waxa u soo sheegaysan aniga Zainab Madiina magaraysa Marin Amaro Zainab Kijner soo sheega kaliya dhibaatada haysta kabacdi talaba hore laga qaadaya The more we discuss, the more we reach our goals, whether in work and action iyo internal goonida in community-geenaba. waa tahay barnaamijku waa barnaamijkiinii Danger Show aad nooga barateen inaan ku soo qaadanno arrimaha muhiimka ah ama saamaynta u leh jaaliyadda Soomaaliyeed ee North America haddaan nagu cusub tahay waxaan ku leeyahay soo dhawow nagu soo biir fadlan subscribe-ka noogu dhufo like-gana noo taabo haddaa horey noola socotayna marka la soo dhawow waa ku mahadsantihiin daawashadiinna intaan midkiisa kale ku kulmi doonno waa aniga oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo